shan tusaalayaal ama calaamadood oo tusaya ama deliil u noqon kara in ninka ay ku soo siyaaday xaas kale. qodobkan dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay xasaasiyad ka qaadaan ama ay si kala u fiiriyaan, laakiin arrintaa waxaa iska leh dumarka. ma doonaysaa ninka aad isu shukaansataan ee aad doonaysaan inaad nolosha iyo mustaqbalka isku darsataan, aad rabtaan aad ku heshiiseen inaad ogaatid inuu naa kale kula shukaansado? waxaan la soconnaa ragga intooda badan haddaaman dhihinba dhammaantood waxay u saaxiib yihiin inay wax kala qariyaan oo wax kala aasaan. waxaa laga yaabaa xaaskiisii uu qabay inuu qariyo ou naa kala guursado. haweenaydii kale markay weyddiiso tidhaahdaa xaas miyaad leedahay uu yidhaahda maya, weligayba mare kama faydinba, oo halkaas soo istaago isagoo laga yaabaa 4 iyo 5 iyo 6 ama 2 iyo carruur loo hayaba oo xaas kala qabo. dhaqanka raggu waa sidaas. in badanoo adinka ka midana waa igu raacaysaan. ama qofkii uu shukaansanayey ee islahaayeen mustaqbalka isku darsada, in kastoo rag badan mustaqbalka ay sheegayaan ay been ka sheegayaan ama waddadii loo mari lahaa aysan u marayn. marka haddaad doonaysid gabar yahay inaad ogaatid ninkaadu inuu naa kala shukaansado ama uu kaa qarsado uu guursaday, ama ninkaad shukaansatid aad ogaatid inuu naa kale kula shukaansado, waxaan kuu soo gudbinayaa dhowr arrimood ama dhowr qodob oo tilmaamaya in ninka ay ku soo siyaaday haweenay uu kula guursaday ama uu kula shukaansado laakiin adigu kaa qarinayo. laakiin calaamada lagu dareemo ayaa jira. calaamadan marka malaha sidiisa badan ama intiisa badan 80% waxay tusayaan inay xaqiiqo noqon karto arrintaas. bal dhegaysa calaamadahan. jacaylka ninkuu haweenaydiisa jecel yahay, haweenayduna ay ninkeeda jeceshahay, waa wax saxiix ah oo sugan. laakiin mararka qaarkood khiyaano inay imaataa macquulah oo ninka xaaskiisa uu khiyaamo. sababta uu ninku xaaskiisa u khiyaamayo ama waxyaalaha u sababaya inuu xaaskiisa khiyaamo ka hadlimayo, mawduucan uga hadlimayo. waa mawduuc gooni ah asagana oo aan ka hadli doono insha allahu tacaala. waxaa kaloo ka hadli doonaa ninka beenta badan calaamadaha lagu garto. marka waxaa jira calaamado tusaya ninka xaaskiisa inuu khiyaamayo. dhowr calaamadood haddaan soo qaadanno ama tusaalayaal. isbeddelka ku imaada nolosha ninka uu isbeddelo inta badan waa wax iska dabiici ah, laakiin isbeddelkaasi rubama laga yaabaa inay keentay haweenay kale uu kula qabo ama uu kula shukaansado laakiin uu kaa qarinayo. inay haweenay kale ninka noloshiisa soo gashay waxaa lagu dareemi karaa inuu muujiyo dhaqamo kala duwan oo horay uusan u lahaan jirin. hadday noqoto aaladaha uu isticmaalo oo ka isticmaalo facebooka, ama sida uu hadlayo, ama sida uu soconaya iyo sida uu ficil ahaan u jawaabayo ayaa laga dareemi karaa. bal labiskiisa iyo qaabku u labisto ayaa laga dareemi karaa in noloshiisa ay ku soo siyaaday haweenay kale ama haweenay kula shukaansada ama uu kaa qarinayo oo uu hoos ka guursaday. laakiin waqtiyada qaar haweenayda waxaa la doonayaa inay digtooni qabto oo ayna ictimaaddo, bimacnaa ay cuskato haweennimadeeda wanaaggeeda intaysa ku xeel dheeraan ka hor arrimaha ka imaanaya ninkeeda xallinteeda iyo dhaqdhaqaaqiisa inay eegto. marka hore intaysa arrintaas samayn waxaa la rabaa inay ogaato haweenaydu in ay muhiim tahay inay cuskato haweennimadeeda wanaagga ay leedahay oo ay ku kalsoonaato. calaamadaha lagu dareemi karo waxaa ka mid ah oo ninkaada aad ku dareemi karta inuu naa kaa qarinayo. waxaan ka soo qaadan karnaa inuu ku mashquulo taleefankiisa uu wato, weliba mashquul joogto ah oo fiirinayo masaj kasta oo u soo dhaca, walow laynka uu wato ama lambarka uu wato shirkadda uu ka wato masajkaas soo dirto. laakiin masaj kasta uu la soo diro ama taleefankiisa ku soo dhaca inuu fiiriyo isla markiiba ayuu jeclaysanayaa. laakiin masaajyadaasi agtaada markuu joogo ma furayo. masaajyada u soo dhacaya laakiin markaad agtaada u joogo maba furaya, mana fiirinayaba. qodob kale ama dhinac kale haddaan ka fiirinno, aaladdu isticmaalo ama laabtoog hadduu isticmaalo uu ka isticmaalo aaladaha lagu xidhiidho ama taleefankiisa uu ka isticmaalo, waxaa laga yaabaa inuu ku dadaalo inta badan inuu ka masaxo wax kasta oo masaj ah. bimacnaa waxaan ka wadnaa maasajyada ama sirta ah ama ee waaweyn ee isleeyahay xaaskaadu inay ogaato ma rabo wuu tiraya. way iska jiri kartaa dad dabcigooda uu yahay in taleefankooda masaj kasta oo soo gala inay iska tiraan, ayagoo doonaya taleefankooda inuu ka jaamgaro ama waxyaalo kale ay ku imaadaan, ama dunida ammaankeediisi si kaleu noqdayo maasajyada tirada badan in lagu dabagalo asagoo ka cabsanaya xalaga inuu iskaba tiraba masjidku noocuu doono ha noqdo.
laakiin haddaad horay u ogayd inuusan masixi jirin maasajyada mar dambena aad ogaatay inuu maasaj kastoo u soo dhaca markuu fiiriyo uu masaxayo oo aad markaad taleefankiisa fiirisid aadan ku arkayn wax maasaj ah ama wax farriin ah dhinaca maasajka caadiga dhinaca whatsappka dhinaca facebook aadan ku arkayn horayna aad ugu arki jirtay iyadoo loo soo dirayo laakiin uusan waxba tiri jirin laakiin dabeecad dambe uu la imaado uu tirayo taas waxbaa soo siyaaday taa waxay tilmaamaysaa in hawshu ay lug qarsoon tahay oo dhaqan cusub uu la imaaday haddii markii horeba dhaqan ahaan u lahaa oo aad sidaas ku taqaaneen taa laga hadli mayo laakiin waagii hore dhaqan ooma lahayn maasiyada inuu tiro facebookiisa whatsappkiisa aaladahan uu isticmaalo waxyaalaha loogu soo diro inuu iska tiro inuu maaragtay uu qariyo uu ka qariyo xaaskiisa waxyaalahaas haddaada ku ogayn laakiin beri dambena wasaa la imaaday waxbaa jira haweenay kalea kusoo siyaaday ninka noloshiisa adiguna kaa qarinaya dhinac kale haddaan ka fiirino ninkan bixitaankiisu hadday aad iyo aad u tiro badan tahay adigana uusa ku dhahayna keen bimacnaa xaaskiisii baa tahay wuxuu doonayaa meel inuu aado suuqa inuu aado meel u baxo haddaad tidhaahdeen aan ku raaco maya iska daa macanto meel aan u socdaaya waxbaan danaan soo leeyahay yacni rag baan la kulmaya ama asxaabaan la kulmaya waxyaalaha noocaas hadduu ku yidha waxbaa soo siyaaday haddii waagii hore markuu baxo ama magaalada aado uu yidhahdo nakeen israacne oo israacdaan ama adiga markaad adiga aad baxaysid in uu ku yidhahdo nakeen aan ku raace ama nakeen aad tidhaahdid uu yeeli jiray oo sidaasi wanaaggaasi aad ku noolaydeen beri dambena uu la imaaday bixitaan uu baxayo oo joogto ah oo adiga uusa ku raacayn ama adiga uusa oggolayn inaad raacdid uu cududarro kale kuu samaysanayo taa waxay tilmaamaysaa qof baa jira la soco si wanaagsan oo xikmadaysanna inaad u xallisid baa muhiima marada inaad tuuratid markaasi ma aha ninku hadduu markii hore bixitaankiisuu naadir ahaa bimacnaa marmar iyo iska ahaan jirtay uuna ku dadaali jiray inaad israacdaan ama uu ku raaco kadibna aad ogaatay inay arrintii isbaddeshayoo uu bixitaankiisii tiro batay raacitaankaa raaci jirtayna uu yareeyey markaasi waxbaa jiroo noloshiisa qof baa ku soo siyaaday oo kale qodob kale waxaa weeye hurdadiisu hadday yar tahay uu soo jeedo uu taleefon ku soo jeedo tusaaloo kale waa wada seexateen waa wada jiifsateen adiga waxaa soo toostay asagoo soo jeedo taleefonkii ku mashquulsan kadib markuu ku arkay isla markii taleefonkuu damiyey ama taleefon buu ku hadleeyey markaad u soo gashay ama aad fiidhisay ayuu hadalkii uu hadlayay jaray oo laynkii iyo taleefonka ku jiray uu jaray taasna waxay tilmaamaysaa in wax lagaa qarinaya adiga waxay yihiinba waagii hore hadduu iska seexan jiray fiidkii adiga uu kula seexan jiray mar kasta aad fiidhisinoo jiifi jiray oo aad isla jiifi jirteenoo wanaagga aad ku noolaydeen maadambana aad aragtay in hurdadiisu yar tahay markaa aragteen taleefon uu ku mashquulsan yahay ama meesha fadhiga ama qolka kale uu la tago laynka ama taleefon ku hadlayo markaad u soo geshidna uu jarayo ogow waxbaa jira oo waa lagu soo siyaaday ninkaada naag buu qarinayaa ama kula shukaansanaya oo doonaya inuu kula guursado waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garan karo arrintaas catar iyo baraafuun aada ku ogeyn inay ka soo carafto tusaaloo kale gurigii waa la yaqaana shoobinka yaal iyo caraftii taallay waa taqaanaa oo waa u diyaarin jirta waa ninkaadii maasha allah laakiin waxaa aragtay catar iyo caraf aan guriga laga isticmaalin asagoona uu soo wadan ayaa ka soo carfaya mar kasta ogow qofba u soo mariye gaar ahaan markay catarrada haweenku isticmaalaan ay yihiinba iyo hawlaha ay isku bukhuuriyaan haweenku hadday markaa yihiinna hawshu waaba sii weyn tahayba ama waxaa la mida timo waxaad ku aragtay shaatigiisa ama dushiisa markuu guriga imaaday tin dheer ama tin haween oo dul saarona ka muuqata marka ogow haweenay buu kaa qarinayaa oo uu qabaa laakiin muhiimaddu waxaa weeye calaamadahan gaar ahaan labadan dambe ee catarka iyo tinta markii loo fiiriyo yaqiin ma ahan inaad hubsitid baa muhiima si xikmadaysanna aad u qaabishid oo bimacnaa aad u wajahdid malaha xun iyo shakiga xun iyo masayrka in wada socda iyaguna khayr ma lahan mana fiicna waagii hor haddaad ninkaada markuu baxayo aad catarka siin jirtay oo dharkiisa aad u kontarooli jirtay oo si fiican aad ugu labisi jirtay hadduu waayaha dambe keeno may iska daa dhib ma laha intaana igu filan intaana marsanaya maanta catar ooma baahnayn sanka ay xanuunaya ama dharkan iga dakana iska qabaya oo hawlaha kuula imaado dhaqan cusub ah ogow waxbaa horreeya meel kalaa lagu tashanaya marka calaamadahan iyo kuwo kaleo aynu tilmaamin waxay tilmaameen dadka ka hadla cilmiga bulshada ama dhaqdhaqaaqa ragga iyo dumarka ka hadla inay calaamadahan tusaalayaal u noqon karaan in ninkaada lagu soo siyaaday oo uu naag kale kula guursaday oo uu kaa qarinaya ama naag kale uu kula shukaansado
calaamadahan waaqiceenna iyo nolosheenna bulshadeenna haddaan ku miisaanno soo dhex dhignana waan arkaynaa imisaynu aragnay nin iyo xaaskiis oo is-haystaa oo waxay isku haystaan ay yihiin naag buu ila guursada oo iga qariyey haweenka intooda badan 96% waxay jecel yihiin ninkooda hadduu guursanayo inuu u sheego le'anna markaa waxay dareemaysaa kalsooni iyo inuu la tashanayo baynamaa 97% haddaad qarisid kaa aamin baxayaan macnaa intooda badan horeyna soomaalidu waxay yidhahdaan xalaal barqaa la gashaa ninku maduu xaas gal labaad guursaday mid saddexaad uu guursado xaaraan kuma dhicin laakiin sida loo isticmaalayay sida loo adeegsanayaa xaaraam ku ridaysa ummad badan waxaa la rabaa qoyska kalsooni iyo jacayl dhexdiisa inuu abuuran yahay khiyaano iyo wax isdabamarin lama rabo wixii iyadoo xalaal kuu yihiin haddaad khiyaano iyo isdabamarin u martid xaaraan bay noqonayaan horeyna waan uga hadalnay masaa'isha noocaana dibna waa uga hadli doonnaa insha allahu tacaalaa masaa'isha iyo arrimahan bulshada iyo qoyska ku tacalluqa ilaahay idinkiis adinkoo nagala socon doona insha allahu tacaalaa bogga aan ku leenahay ee youtubeka oo ah badbaada t v si aan u badbaadinno nafteenna qoyskeenna bulshadeenna annagoo u hadlayna si diini ah si bulsho ah si caqli ah ayaan rabnaa inaan walaalo noqonno oo khayrka aan wada faafinno wixii la talin ah iyo wixii tusaale kaleoo wanaagsanna intaynu naqaanno aynu u gudbinno bulshada sida masaladan oo kale iyaguna noo soo gudbayaan insha allahu tacaalaa si aan u noqonno sida ilaahay uu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwaa wanaagga iyo khayrka iyo horumarka isku kaalmaysada oo bimacnaa isku taageera ilaahayna ha tuso ragga xaqiraadda iyo maaragtay waxqarinta iyo khiyaanada ay ku jiraan oo haweenkooda ay ka gelayaan ilaahay ha tuso ilaahayna tabaaraka wa tacaala ka dhigo kuwo arrintaasi uga toobadkeenoo noqdo waxooda xalaasha ay samaysanayaan wadacad kuwa ku sameeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu